caashaqu qabiil ma leh way qarada adduunkiyo caashaqu qabiil ma leh way qarada adduunkiyo waqisoo ku caanow dadow qaxarka dhaafa dadow qaxarka dhaafa jarmaadiyo carababa jidka waxaan ku soo jiray hadba jimicsi iyo taa jabkaan anigu soo maray hadduu dooqu calaf yahay ama doogiyo cagaar yahay cusub iyo caleen yahay ama caanshaquu dareen yahay caawaba xulbaa iscalmaday gayaan canshaqa ishelay nasiibkooda caawiyey casiizo allahayo udaa noloshee niyow aniga markaa jaceylka maqla maaragti jaceylka niyow waa wax inaba aan caadi ahayn waa dareen ku abuurma qalbiga السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان داودياشا كحران جنال كران شاتا برودكشن waxaan idin leenahay meel kasto aad joogtaan waqti kasto ay idin tahay oo wanaagsan saaxiibada ku xiran janaal keenan shata production aadan u bogaadinayna dhamaantiina waxaan idin leenahay waqti qurux badan oo wacan oo wanaagsan aadna u qiimo iyo qaaya badan saaxiibayaan maanta waxa ila fadhiya sida aad u jeedaan shakhsi caana reer Kampala marka la yiraahdo muddooyinka dambana si aad ah alla ilaahay u soo muuqanaya oo baraha bulshada si aad u qabsaday inta badanna aad kala socotaan janaal keenan shata production anigu waa duceysana kaamirada waa shata وكا فنان كعانكا إلى فريا ugu horeen magaciisa isaga ayaa idin sheegi doona oo aan ku soo dhaweyn doona alfanaan soo dhaw aad ma santahay wariye duceysane aad yaad waxa kala salaama reer shata team shata production ya aad yaad iyo waliba abwaankaaga samatalis abwaanka daayira samatalis oo haatanba kamida asxaabta nolol joogta استوديو مقالك أكو دوبينو واضح الفناني dadku waxa ay kugu arkeen reer Kampala inta badan in muddooyinka dambe aad ka soo muuqanayso xagga fanka ugu horeen magacaaga oo saddexan aye bulshada la wadaag magacaygu saddexan waa Maxamed Maxamuud Madow neenaastii soo baxay Madali نيناستا مدالي مركي عاد في رسو أرياس معنا بدن وليه وحبارسينها مدالي ما هو فنك مكدالي يعمل ماي نين قبيرة يبحي هرتا انت كسلامة بشيرنا عليه ادي ولجن قدومي كحيان كسبورتس كجاليد سوماليات دل كان يقان ادي marka waxa dhacday in magaca banaaneysta ama magacii oo socon waay ma fahanti aad magaca kale oo sportiska maadaama fanaanna sportiska aan ku badanahay oo dadkana ay aad u yaqaanaan xaq ina bunu sportiska aad u ciyaaro markuu fikiray waxa dhacay magaca wadid ma iskeenayo walba dhanka bunooniga aad ku badan tahay oo aadna u dhashido madaalaha lagu madaali fankina waxaad ku soo gashay madaali الفنان مدالي daawadayaal sida aad la socotaan alfanaan madaali heese kala duwan alla ilaahay ayuu soo wadaa qaarkood waxaan ku soo bandhignay barteenan YouTube-ka shata production waxaan idin ka codsanaynaa dhammaan daawadayaasha inaga daawanaya channel-keenan inay muuqaalka like gareeyaan markasta oo aad muuqaalka like saarto waxa ay naga caawinaysaa in dad badan uu sii gaaro muuqaalkaas siina share garay comment-na ka soo bixi saaxiibayaal waan guda galaynaa ugu horeen alfanaan madaali maadaama aad ku soo biirtay fanka Soomaaliyeed yaa kugu dhiirigeliyay maxay tahay sababta aad ugu soo biirtay fanka runtii horta waa aad u weyn tahay shaashahaye waxaan jeclaystay mar aan dhaweyn horta 2010 mar ahayd waxaan jeclaystay inaan cod leeyahay ama 2010kii ayaad ogaatay inaad talanti lagu heesi kara aad leedahay aad marka waa jeclaystay inaan fanaan noqdo maadaama ii saamaxays waqtiga
marka intaasba waa madadaalo caadi marka 2010kii kambaaladan hadda aan ku sugannahay ma joogtay may Kenya joogtay markaasaad neysatay laakiin garab ayaad weysay aad weyn waa tahay haatan marka adiga ahaan noloshaada markii laga soo bilaabo aaskaagii yaraantaadii ma jecleed fanka ma jecleen laakiin waxay ugu dhalatay inaa heeso ama aad jeclaado fanka markaa gaaray maxay ahayd markii gadaalaad ka jeclaada aad iyo aad waa tahay qof kasta wuxuu markii dalkan Uganda laga gudbo waxa uu ku noolaa meelo kala duwan Soomaaliya xageed ka degneed adigu oo aad Ilaahay aad isleedahay waad ku soo barbaartay oo asxaabtaadii Ilaahay la jimiinta ahaa oo inta ka daawanaya aniga waxa ku dhashay horta Kaaraan waxaan ku soo degmada Kaaraan aad iyo aad waxaan ku soo barbaaray ilaa aan ka soo tagay Xamar ama Muqdisho waxa ka soo tagay degmada Xamar Jajab aan u salaamay asxaabta Kaaraan iyo Xamar Jajab aad u salaamaysaa aad weyn dhammaan anagana waxaan salaameynaa asxaabta kala duwan ku nool gobolka Banaadir iyo Soomaaliya oo idil meel kasto ay joogaan waa salaameynaa waxaan leenahay Shatta Production like-ta iyo share-ta iyo comment-ga iyo subscribe-ka haddaad ka ilowdaan waa adinka dii nagdaay bash ciyaarta dheeshka daay saaxiibayaal waxa waaye adduunka walaal lagu yahay ma garateen marka meeshan briiska ku jiray hala saaro like-ta iyo share-ta marka iyo comment-ga subscribe-ka yaa la iska xasday alfaraan marka ku soo laabto waxaad qaaday heeso kala duwan marka mid kamid ah heesahaaga inoo soo qabo wareysiga ayadoo noo sii socon doon kuwa hore hore u qaaday ama heesa aad isleedahay fanaaniin hore oo waaweyn hore u qaaday oo aad isleedahay Ilaahay saaxiibadaada haafka hore ama qaybta ugu horeyso waad ku qancin kartaa aad weyn heesta hore u qaaday heesta cusub oo jirta hees cusub oo hadda soo socoto mid hadda soo socoto oo wali aan soo bixin commission-keedu waa sii hor dhacaysaa aad weyn ku soco heesta waxaa sameeyay horta abwaan daayir Samtalis halkaan ka salaama aad iyo aad laxankana waxaa saaray Salaan Dahab aad iyo marka muusikana Xamaad Al-Asal marka aydan way soo socotaa kamid Xamaad Al-Asal waa musicianka inaba aan caadi ahayn ee daayirka reer Muqdisho inaba aan sanadahan dambaba aad buu u kacsan yahay kaxaye iyo anigoo oo ku laqeynaa maxay ahayd heeska xaye heesta hadda ku socdo waxay tahay dhabbaan ku jacaylo dartaa bandeliya adoonigu dhaadanayn dhabtayda kalayo dawe dhabbaan ku jacaylo dartaa bandeliya adoonigu dhaadanayn dhabtayda kalayo dawe aad iyo aad maadaama heesta weli aysan soo bixin waa la sii hordhaca niyo aniga markaa jaceylka maqla maaragtay jaceylka niyo waa wax inaba aan caadi ahayn waa dareen ku abuurma qalbiga yaa marka jaceylku inaba caadi maahan saaxiibayaal heesta macnaheedana waa dareemi kartaan dhab baan kuu jecelaho والله جعلك عادي ما انه قلبي شاتات جعلك مركو مقلو كان سي دم واسبدلي مقرت واضح داوديال وكسي سكونينا maxaa kaloo heesa oo aad noo heesa Ilaahay oo aad isleedahay daawadayaasha waxa kaloo soo socda ayadana heesa kale oo badan aad soo wadaa heesa badan heesa aroos waliba daawadayaasha la wadaag inaad ku ekaan doonin heesaha degan waliba raabka inta badan dhalinta haatan ay xiiseynaysan aad soo wado aadeen insha Allah ku kale ayaga iska iman doono wax badan soo socdo insha Allah yal sugu weynin ha team Shatta Production waa idin sheegayna leedahay marka ku soo maxaa lahayd ku soo yaaca si aad u aragtaan inta kale soo socoto waxa kale soo socota hees aroos ah heestan ayadan waxay tahay waa isla abwaankiya sameeyay wali comment sunteeda soo baxday heesta arooska ah saan jecla may midaan wali soo bixin ayadan waa tahay heesta arooska oo soo socota oo Ilaahay aan isleenahay waa ay ruux doontaa dhamaanba
xafladaha Kampala hoolalka Kampala aroosyada Kampala lamaanayaasha iscalmaday ee aroosyada dhiganaya waa ay ruuxi doontaa oo saameyn ay ku yeelan doontaa heesta haye qayb kamid ah hadduu dooqu calaf yahay ama doogiyo cagaar yahay cusub iyo caleen yahay ama caanshaquu dareen yahay caawaba xulba iscalmaday gayaan canshaqa ishelay nasiibkooda caawiyey casiizo allahayo udaa noloshee عزيزو الله دا يا لمانياشا حتى اسعلمدي ee cawadan isguursaday ama maalintan isguursaday عزيزو isku daa hadda adiga daawanaya oo lamaanayaasha ay la hadlaynaa marka waata heestaa way soo bixi doontaa ayadana madaali markii laga soo tago dhanka fanka reer Kampala dhalinta Soomaaliyeed inta badan bahda sportiska si aad laga yaqaanaa waliba waxa lagu yaqaanaa magac ciyaariyahana sidaan jeclahay Moses aad weyn kubadda cagta ka waran naadiga taageerta kubadda cagta waxa taageera laba tiim taageera ay midna waa Chelsea the Blues markii la liiga lahan waxa taageera Barcelona oniyo aad isku mid ah markaasi liiga soo jeeta balbuluugi waxa waaye Barcelona taageera fanaanka waata kubadda cagta markii oo si aad loo fiiriyo fankaaga markii gooni qayb loo dhigo Kampala si aad kubadda cagta ayaad u dhishaa oo aad u ciyaartaa inta badan waqtigaada juhdigaada aad gelisaa maxaad ku dooratay kubadda cagta inaad ciyaarto kubadda cagta horta wax badan ay iga saacidaa waxa waaye maadaama hadda sanadada dambe dadka hadaysan banooni ciyaarin inay balood bilaaban tahay aad marka anna yaraanteeda oo bilaabo ina ciyaaro banooni waa ku dhiir marba waxa isla yaraanteeda aad u xiisan jirtay aad u xiisan jiray halka ka bilaabo fanaanimada dhaxal ka soo bilaabo laakiin banooniga kubadda waxa ka soo bilaabo yaraanteeda ha saaxiibadu yaraantii hadii la maqlo waxa kugu soo dhacay sheebal iyo waxyaabo kale iyo waata haddii aan dhanka kale sii eegno waxaa jiro heesa adiga hore loo qaaday oo aad adiga mar kale aad qaaday kamid ah heesaas noo soo qabo heesta xitaa waa heestii jamaaday heestaas maxaa ku dooratay laakiin inaad dib u soo cusboonaysiiso dib u soo qaado maxaa ku dooratay heesta maadaama ay tahay hees oo message caadi inay tahay teeda kale heesaa jeclahay mar walba aad dhegeysto heesaa dhageystid mar walbana marka oo aad damco inaa fanaan noqdo heestaasaa dhegeystaa waan ku cishtaa codkeedii iyo sideedaa weliba meesha u dhiga marka isla ayadaa ii fududaatay marka inaan qaado mar labaad ku socon daal jamaade wax jacayl la moodaa intuu jiliibka ii dhigay ijabaaxay aniguye jamaade wax jacayl la moodaa intuu jiliibka ii dhigay ijabaaxay aniguye aad الله يعزك أحسن صوت النذا عادي مان وحبلا لقى ما قبل كرو الفنان دالي هذا أو ما سنتاي كفتنك سؤالها كفتنك مركل وصول عبد هل سؤال وقال لي حدينا داود ياش قاركود حتى إسليين محقوق يديهم يدو عيشنا حاسها واسيسكتين والله واسكو في عنارت صح لكن ماشي ku gaabsanay inta maadaama saaheen qof ajaayshay waxa salleeyay aad waa tahay aad ma santahay marka dhanka kale la eego Uganda waxa jirto waxyaabo ka yaabinayo waxyaabo oo ka qoslinayo fanka markii aad ku soo biirtay alleelay maxaad isleedahay waa ay kugu qosol badnaayeen oo waad aragtay oo bulshada waad kala kulantay
runtii horta waxyaabo badan ay arki doontaa marka oo markay dadka wax kugu bartaan inaa banooni ciyaartid oo kale isla ayagoona filanin inaa hees maaragtay qaadid marka dadka horta way aamini waayeen ninkaan codkaan asiga maaleh mise caadi wejiga waa soo saartay waa soo saartay codka soo saartay camal marka maadaama banooniga u ogaayeen maalin iskala kiciyay inaa fanaan maaragtay isku dayo aad iyo aad waxaa ka bixiya wadadii amareera mari waaye mafahamta sax midaas ani xitaa waa isla yaabay macnaha asxaabta qaarkood oo kubadda cagta kugu taqaanay markii stuudiyaa tagtay heesaa soo duubatay heestii waa ay soo baxday markii ay arkeen in hees adig aad soo qaaday la yaab ay ku noqotay ayaga la yaab ay ku noqotay sababtoo ninkii kubadda cagta lagu ogaa oo Moses ahaa maro isbedelay oo maanta madaali isku bedelay oo fanaan aad weyn aad iyo aad waa tahay dhanka iyo qosolka markii loo waxyaabii yaabka hadda ka gudubno waxaa jiro heeso badan oo aad soo wado aad iyo aad sida aan ka dhayalsan karo adiga iyo waliba abwaankaaga heeso badan aad soo wadaa dhammaan saaxiibadaada oo aad alla leeyahay heesaad ula socda Team Shatta Production ay ku yihiin oo la'aantood anaga aan waxba ahayn maxaad leedahay Team Shatta Production horta aad u mahadsan yihiin inta hadda ku xiranay inta hadda ku soo booqan doonto aad iyo aad maxaad leedahay marka dhammaan taageerayaashaada adiga khaasatan oo haatan fanka kugu dhiirigelinaysa aad weyn horta waxaa fanki ugu dhiirigeliyo ragga banooni isla ciyaarno dhalinyarta qaarna waa oo mataqaana way ka soo horjeesanaa waa qasab horta inaa cadow yeelatid aad iyo aad mar isla ayagiyo saaxiibo kula laga yaabaa inuu maanta saaxiibka ahayn ama kula talinayn inaa oo wax fiican aa samayso kale hore u soco qaarna ay ku leeyihiin saaxiib waa maasha Allah tahay hore u soco معرض إيه محافظ انتبه وسلام فات أهدي معرض انتبه تاجري إيه هنا انتبه ديك الدعوة مرء تاجري كوين أهدي لما تدوا سلام واتاي مركا عن أصول عبنا رنك فنكا سوغانت سوماليات وكردون تاع ما دام أديكو مدالو فنان تاع فنان أهان يا تاجرتا فنان أهان وحتى تاجرها هرتا مركي لقى صوب بلا ودتك هرق محمد موغ ليبان محمد موغ ليبان ها عادي هو سيس هذا وجعلها iyo fanaaniintii dhexe tan dhaxana marka hore oo qadarkeeyo iyo dayaxdal warsha si daawo jirto aad labadaba reer Muqdisho fanaaniinta caasimadda Muqdisho maadaama aan ku hamin jiray in mataqaana oo heesa ay sida u qaadaan oo kale inaad u qaado ana kaga horeeyay hamiga adaa kaga horeysa labadooda waa kaaga horeeyay mafaad anu hamigii ugu jiray ayaga soo baxeen marka ayaga taageer aad iyo taageer buuxdan waa tahay daawadayaal barnaamijkeenan wuxuu ahaa barnaamij khaas ah oo aan ku wareysanaynay saaxiibkeen marna fanaanken alfanaan madaale kana mid ah bahda sportska Soomaaliyeed ee dalkan Uganda sida aadka looga yaqaano gabagabadii maadaama guntii gabagabadii barnaamijkan isla soo gaarnay heesta ugu dambeysay oo daawadayaasha aad u soo qaban lahayd oo bilaa muusiga oo codkaaga aad ku macaan aad ugu luuqeynaysa xaye xurmadaan abuuriyo qoyskan yagleela qalbi dumay sidiisii ayay rajadii qustay xurmadaan abuuriyo qoyskan yagleela qalbi dumay sidiisii ayay rajadii qustay qarqarada wadnaha iyo qalbigan ku qaatee qarqarada wadnaha iyo qalbigan ku qaatee ma ana qardoofiyo qalqalooc ku wadi karaa cansha ku qabiil ma leh way qarada adduunkiyo cansha ku qabiil ma leh way qarada adduunkiyo وقصو كعانو ددو قحرك دافا ددو قحرك دافا وهو الله يعزك جيستان والله النبي عادمان وحبا لقى ما قبان كرو ولي مصابحين معه ولي مصابحين وصو صعد وروح وين صو صعد داود يا الروح وين صو صعد عاشق قبيل مله حدا عاشق قبيل كداي كل الله ولا عليه
عشان قبيل قداي قبل برنامج كنا نسلا سو قارني دمان دالينتا الصوماليات odayaal marwooyinka dhammaantood intana daawata waxaan leenahay saaxiibayaal anigoo isku duban anigoo duceysana ahaa alfanaan madaale iyo saaxiibkay Shata oo kaamirada alle iyo xagga farsamadaba iga saacidayay iyo abwaan samatalis oo qayb ka qaatay barnaamijkan in aan qabano guud ahaan bahdii Shata production isku duban iyo adinka oo ahba dhiirigeliyaasheena waxaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo amaana Allah